Fanaanka caanka ah ee Dayax Nurshe ayaa bilaabay olole ama kambeyn uu lacag ugu ururinayo hablihii yaryar ee lagu kubsaday gudaha Soomaaliya kuwaas oo ahaa 4 jiro iyo 2 jiro. Fanaanka oo muuqaal soo duubay bartiisa Instagram-ka iyo Facebook soo dhigay ayaa waxa uu kaga codsaday dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay kala qayb galaan in uu kambeynkani lacag ururinta ama dhaqaalaha lagu ururinayo hablahaasi yaryar in lagu taageero dhammaan ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in wixii kharashaad ay hayaan ay ugu soo hagaajiyaan lambarkiisa. Fanaanka oo hadlaya waxa uu yiri السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن السلام دمان أمد مسلم كمال كستو أدونك أكجوكتان قاسة أمد الصوماليات وحان ربنا إنان إذن أغيسينو إنان بلاوني عاوينتي قبليه عرورت أها يريراء الكفصة مدنا 6 جيرك أهد مدنا 4 جيرك أهد سادرتي دولاليهن صوماليات وحاين كعد سنينا إنان نقرب استاكتان أو نقو قرب استاكتان سيدي ugu wanaagsaneed ee aan ku caawin karnay caruurtaas yaryar oo qaarkood aan dhali karno qaarkoodna aan walaalo noqon karno maxaa lahaa Xuseen intuu Dayax sheegay waaye qoraalaha horena waa idin la wadaagnay sheekada gabdhahaasna hore u maqasheen wasaaradda ka hadashay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul horumarinta xuquuqda dumarka waxaa kaloo ka hadlay wasiirka warfaafinta dad badan ka hadlay marka waxaan rabnaa inaad gacan ka geysataan oo contribution sameysaan marka walaalayaal waxaan rabnaa sadaqo yar Dayax Nurshe ayaa kamid ah fanaaniinta farakutiriska ah ee shaqooyinka noocan oo kale bulshada la qaybsada waxaana jirta in fanaaniin fara badan oo baraha bulshada caanka ah in haba yaraatee aan laga haynin in gabiyahanba ummadooda ama gabiyahanba shacabkooda ay wax ku soo celiyaan laakiinse alfanaan Dayax Nurshe ayaa ka duwan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa fanka ku jira waxaanu kamid yahay fanaaniinta aadka ugu damqaday dhibaatada soo gaadhay qoyskaasi gaar ahaan hablahaasi yaryar ee la kubsaday waxaanu bilaabay in dhaqaal ururin uu u sameeyo dadkana gaar ahaan taageerayaashiisa iyo shacbiyadiisana uu ka codsado in gabiyahanba ay wax la qabtaan oo ay la ururiyaan xaaladda hablahaasi yaryar ee la kubsaday ayaa laga soo deerinayaa maalmihii ugu dambeysay waxaana dowladda Soomaaliya wacad ku martay in ay maxkamad la tigsan doonto kuwii falkan ka geystay waxaana ayadaha xuquuqda aadamaha u dooda gaar ahaan kuwa caruurta yaryar ay gabiyahanba cambaareen dusha uga rideen in xaaladda noocaas oo kala ay soo wajahdo falkani ayaa gabiyahanba noqday fal runtii aad looga gilgasho guud ahaan gudaha Soomaaliya waxaana ummadda Soomaaliyeed isweydiinaysaa waxyaabaha ku kalifay nimanka waxaasi sameeyay waxaana noqotay markii ugu horeysay wax laga damqado waxaana socdo olole lacag ururin oo lagu ururinayo dhaqaalo hablahaas yaryar sidii loo caawin lahaa waxaana hadda uu bilaabay alfanaan Dayax Nurshe dhaqaale ururin uu ku sameynayo guud ahaan hablahaasi waxyeelada soo gaadhay kaas oo doonayo inuu ka caawiyo waxaana uu sheegay in runtii uu aad uga damqaday xaaladaas ay ku sugan yihiin waxaana ku sheegay in hablahaasi ay la mid yihiin caruurtiisa kuwa uu isaga dhalay iyo kuwa uu walaalaha leeyahay Dayax Nurshe ayaa kamid ah fanaaniinta aadka looga jecel yahay gudaha Soomaaliya iyo guud ahaan adduunyada kale marka la eego Soomaalida gaar ahaan fankiisa iyo guud ahaan dadnimada ku jirta fanaankaasi waxaa lagu sheegay in fanaankaasi uu ka duwan yahay fanaaniinta kale maadaama fanaankani uu ka qayb qaato horumarinta dalkiisa iyo dadkiisa taas oo maalmihii ugu dambeysay ay ka muuqatay isaga iyo shakhsi ahaantiisa waxaana lagu tilmaamaa in fanaankani uu ka duwan yahay fanaaniinta kale waxaanu masab iyo magac kaga leeyahay bulshada dhexdeeda waxaana inta badan la isku dayaa fanaankani in waxyeelo laga soo gaarsiiyo dhanka familkiisa halkaasi oo ay jecel yihiin gabadh aad u wanaagsan uu qabo oo lagu magacaabo Farxiyo taasoo inta badan lagu andacoodo in gabiyahanba ay isfurayaan ama inta badan laga sheego war xumo tashiil ah in Dayax iyo xaaskiisa ay islaayeen taasina ay inta badan baraha bulshada ku soo noqnoqotay waxaana la sheegay in laga been abuurtay lana sheegay in jacayl aan waxba ka jirin uu qabo dumar kale oo Soomaaliyeed oo inta sawiradooda iyo isaga la isku soo dhajiyo baraha bulshada la soo dhigo tani waxay ka turjumaysaa in fanaankani uu yahay fanaan daacada bulshadiisana jecel dadkana aad uga damqada dhibaatadu soo gaadho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن السلام دمان أمد مسلم كمال كستو أدونك أكجوكتان قاسة أمد الصوماليات
waxaan rabnaa inaan idin ogeysiino inaan bilownay caawintii gabdhihii caruurta ahaa ee yaryaraa ee la kufsaday ee midna 3 jirka ahayd midna 4 jirka ahayd. saa darteed walaalaheen Soomaaliyeed waxaan idinka codsanaynaa inaad na garab istaagtaan oo nagu garab istaagtaan sidii ugu wanaagsaneed ee aan ku caawin karnay caruurtaas yaryar oo qaarkood aan dhali karno qaarkoodna aan walaalo noqon karno. maxaa lahaa Xuseen intuu dayax sheegay waaye qoraalo horena waa idinla wadaagnay sheekada gabdhahaasna hore u maqasheen wasaaraddaaba ka hadashay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda dumarka waxaa kaloo ka hadlay wasiirka warfaafinta dad badanaa ka hadlay marka waxaa rabnaa inaad gacan ka geysataan oo contribution sameysaan marka walaalayaalo waxaan rabnaa sadaqo yar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa in salaam dhammaan ummadda muslimka meel kastoo adduunka ka joogtaan qaasatan ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabnaa inaan idin ogeysiino inaan bilownay caawintii gabdhihii caruurta ahaa ee yaryaraa ee la kufsaday ee midna 3 jirka ahayd midna 4 jirka ahayd. saa darteed walaalaheen Soomaaliyeed waxaan idinka codsanaynaa inaad na garab istaagtaan oo nagu garab istaagtaan sidii ugu wanaagsaneed ee aan ku caawin karnay caruurtaas yaryar oo qaarkood aan dhali karno qaarkoodna aan walaalo noqon karno. maxaa lahaa Xuseen intuu dayax sheegay waaye qoraalo horena waa idinla wadaagnay sheekada gabdhahaasna hore u maqasheen wasaaraddaaba ka hadashay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda dumarka waxaa kaloo ka hadlay wasiirka warfaafinta dad badanaa ka hadlay marka waxaa rabnaa inaad gacan ka geysataan oo contribution sameysaan marka walaalayaalo waxaan rabnaa sadaqo yar.